الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين magacaygu waa Axmed Sheekh Abdullaahi gudoomiyaha Islii Business District Association oo ah milkiilahi Yare Towers alxamdulillah qisadii yareed oo maanta dhacday ayaan doonayaa inaan xooga idin ka waramo saakay barqadii oo numaleynaya 4 saac ilaa 5 saac subaxnimo ayaa lagu helay musqul iyo liftiga dhaxdeeda qoraal oo sheegaya in meeshan ay Yare Towers oo bom lagu rakabay oo la doonayo inuu qarxo saacada markay tahay kowdii ama duhurnimo ama sidii loo aqaano todobadii oo duhurnimo markaas ayaan wargelinay laamaha dawladda oo ku shaqale security-ga amniga wadanka anti-terror police unit iyo police kaleeto isla markii hooshii bay la wareegeen sifa oo amniga lagu xaqiijiyo oo lagu ogaado inuu meesha bob ku jiro ama oo ku jirin alxamdulillah shaqadoodina si fiican ay u qabteen waxa mahad ilaahay baa iska leh bomna laguma arkin marka anoo ku hadlaayo afka gudoomiyaha shacabka bulshada Islii waxaan doonayaa inaan idin xaqiijiyo amniga dawladda ku shaqale waana sugan yahay si aad ayaana haddana kor loo sii qaaday marka bulshada waa nabad qabtaa alxamdulillah yaa la waswaasin ganacsigana sidii hore ha iska sii socdo intaasaan rabaa inaan af Soomaali oo ku sheego waxaan rabaa inaan hal su'aal kugu daro oo bala ka socda yaa markii hore idin sheegay in meeshan qarax ku jiro bilowga hore qoraal baa lagu arkay musqul iyo lift gudaheed markaas ay shaqaalahii iyo dadkii soo arkeen ayaa na soo qabargalay isla markiina managementkii ayaa wargalay dawladda ilaa hata ma jiraan wax saki ah la qabo waxa waajibkayga qisadii waxay dhaceen iyo inaan kalsoonida oo qabno dawladda ku qabno oo amniga jiro oo bulshada u soo jeediyo warkii kale taano dambe baaritaan baa jira oo wali si socda ilaa laga salgaarayo qoraalkii meeshu ka yimid oo dadkii ka dambeeya wax oo cid oo maanta ku farfiiqi karno oo dheeh karno kuwaanayto ayaa ka dambeeya ma jiraan nabada qabna wax cadow oo sheegi karno ma jira dhinac kasta intaas rabaa inaan idin gudbiyo nin waalan ama sadad waalan oo inaba aan maskax lahayn ayaa mushkiladan meeshan laga sheegay ka dambeeyay oo waraaq meeshan kaga tegay nasiib wanaag laamaha nabadda ee dawladda biliiska si degdeg bay u yimaadeen way baareen 10 dabaq ee daartan quruxda badan dhawaan la furay kumanay arag wax boma wax qarax ama se khatar gelinaya nolosha dadka marka ganacsatadu dib bay ugu noqdeen ganacsigoodii jidadkana waa la furay wax dhibaato oo ka jirta Islii ma jirto nabadgelyo ka jirta argagaxisnimo kama jirto tuuga kama jirto dadka sidoodii caadiga ay suuqa u socdaan ganacsiga sidaas u socdaa wax dhibaato ah ma jirto wax walwal ama aad ka walbahartaan ayana jirin waad aragtaan in nabadda la sugay waxa halkan ka dhacayna wax been ahaa buu ahaa oo wax jira ma aha marka shicibka waxaan ku leeyahay hawalbaharina nabadgelyo jirta suuqa sidiisii u socdaa ganacsiga dib baa loogu soo noqday jidadkeenu way furan yihiin nabad baan nahay Isliina waa meel nabad ah oo fiican oo aan dhibaato aan ka jirin hapa leo tulipatwa na shida
kuna mwenda wazimu alileta barua hapa akisema kwamba jengo hili litalipuliwa, jengo hili la ghorofa 10 litalipuliwa. Polisi walikuja haraka, wakapeleleza, wakahakikisha kwamba hiyo ilikuwa ni uongo, fake. Hakuna hatari yoyote hapa, hakuna bomu. Na nataka kuambia watu wa Kamkunji na watu wa Eastleigh kwamba hakuna ugaidi hapa, hakuna uhalifu hapa, kuna usalama na amani. Serikali inashikilia amani, barabara zetu zimefunguliwa, wafanyabiashara wamerudi kwenye jengo lao, hali ya maisha inaendelea barabara bila shida yoyote.